وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan bahdaawadayaasha sharafta leh ee fursadda u helay cajaladan inay la socdaan waxaan idinku soo dhowaynaynaa cajaladan qiimaha leh ee daliilka xaajiga iyo muctamirka oo ah tii ugu horeysay ee nooceeda ah oo looga hadlo umuuraha xajka kuna hadlaysa luqadda soomaaliga taasoo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan xujayda soomaaliyeed inta dabadeed xajku waa rugni ka mid ah arkaanta islaamka laakiin nicmada ilaahay nagu galladaystay waxaa ka mid ah inuusan nagu waajib yeelin xajka ilaa hal mar cumrigeenna mooyaane waxaana la gudboon xaajiga inuu niyadiisa allah u khaalis yeelo maxaa yeelay allah siduu noo sheegay xadiisul qudsiga waxba kuma falayo camalka cid kale lala wadaajiyey sidoo kale waa in xaajigu uu ficilka xajka ee uu samaynayaa uga daydo rasuulkii allah nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxaa kaloo walaalaha xujayda aan u dardaarmaynaa inaanay safarka xajka soo aadin ilaa ay soo bartaan sidii uu nebigu u xajiyey si ay ugu daydaan uguna suurto gasho qaadashada amarkii nebigu nooga tegay ee ahaa aniga iiga dayda sidii aad u gudan lahaydeen acmaasha xajka عليه وعلى آله وسلم في قوله خذوا عني مناسككم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق marka al-mukarrama waxaa ku yeela beydkii allah ee catiiqa ahaa kaasoo ah meel ay isugu yimaadaan dhammaan muslimiinta caalamka ku nool ee ka kala imanaya jiho walba isaga ayayna xaggiisa u jeestaan quluubta mu'miniintu maalin iyo habeen walba 5 goor iyagoo u hoggaansan una khushuucsan allah waxaana ay muslimiintu u yimaadaan maka si ay u gutaan waajibka saaran ee xajka ayna u dawaafaan kacbada sharafta badan tan iyo markii uu dhisay khaliilkii allah ibraahim sallallahu alayhi wa sallam iyagoo fulinaya amarkii allah ajiibayana baaqi allah ee ahaa in loo soo xajiyo beydkan iyadoo ayna kacbadu tahay beydkii ugu horeeyay ee loo dhisay dadka si ay ugu caabudaan allah iyagoo ku taagan hanuun iyo cibaado saxa isla markaana aaminsan caqiido saafiya oo ka hufan waxyaabaha khuraafaadka iyo baadilka ku salaysan وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين markii allah uu doonay in qoraxdii islaamku ay soo baxdo waxa uu diinta xaqa alla soo diray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ah nabigii ugu dambeeyay ambiyada allah si ay diintani uga qaalib noqoto una bedesho wixii ka horeeyay diinaha
isla markaana uu dadka u muujiyo wixii baadil iyo jahli ah ee ay ku jireen una caddeeyo xaqiiqda cibaadada allah oo alle iyada darteed u uumay insiga iyo jinniga. arkaanta islaamku waxa ay ka kooban tahay 5 sida nebigu uu yidhi. tan koowaad ilaahay in la qiro inuu yahay kan keliya xaqa lagu caabudayo, salaada la oogo, sakada la bixiyo, bisha soon la soomo, xajkana la aado qofkii awooda. xajkuna waa tiirka 5aad ee ka mid ah tiirarka islaamka, waxaana uu ku waajib yahay qof kasta oo muslina, qaangaara, caqligiisu taam yahay, xor ah, caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaan awooda cumrigiisa hal mar. waxaana dhulkan barakaysan sanad walba yimaada malaayiin xujaaj iyo muctamiriin ah si ay u gutaan acmaasha laga doonaya ee xajka iyo cumrada. xukuumadda sacuudiga iyadoo tixgelinaysa ahmiyadda xajku leeyahay iyo sida lama huraanka ay u tahay in adeega ugu fiican loo sameeyo qof kasta oo muslina oo u yimid gudashada waajibaadka xajka, ayaa waxay u fududaysay dhammaanba waxyaabaha hayso ee dhinacyada maadiga iyo dhaqaalaba, iyadoo sidoo kale wasaaradaheeda dhammaan ku heegangelisay sidii xujaajtaas loo siin lahaa martigelin wanaagsan, loogana fakari lahaa amnigooda, raaxadooda laga bilaabo marka ay soo galaan boqortooyada sacuudiga ilaa ay dalkooda dib ugu laabanayaan. sidaa awgeed waxaad arki doontaa mashaariic fara badan oo lagugu talagalay ee ha ka labalabayn inaad ka faa'iidaysato dhammaan adeegyadaasi lagugu talagalay. waxaan walaalka qaaliga ah ku leenahay ahlan wa sahlan, ku soo dhowow adigoo marti sharaf la ah بلدك حرمك يا شريفك أها. المسلم ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين. الحمد معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزيدوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. xajku waxa uu ka kooban yahay 3 qaybood oo loo yaqaan nusugyada ama qaybaha xajka, iyadoo nusug kastaana uu leeyahay sifo iyo waajibaad u gaara, waxaana ay kala yihiin kan koowaad oo ah tamattuca, kan labaad oo ah alqiiraan, iyo kan saddexaad oo ah al-ifraad. waxaana ugu fadli badan inuu xaajigu sameeyo tamattuca, waana haddii aanu xoolo iyo hadyi wadin. tamattuca waa kii rasuulku uu faray asxaabtiisa. tamattucu waa in xaajigu uu soo xarmado cumro bilaha xajka, uuna la yimaado dawaaful quduumka, sacyiga iyo tumayska gaabinta, kadibna uu xalaalowga dhammaystiran. markii la gaaro maalinka 8aad ee bisha dilxijana waxa uu ka xarmanayaa xajka meesha uu degan yahay, isagoo u boqolaya dhinaca mashaacirta, halkaasoo howlihiisa xajka uu ku taam yeelayo. waxaa qofkaas ku waajibaya inuu hadyi gowraco, hadduusan awoodinna inuu ku soomo 3 cisho xajka dhexdiisa, 7 cishona marka reerkiisa uu ku laabto. qiiraankuna waa inuu isla xirtaa xaj iyo cumra, isagoo oranaya labayka laahumma cumratan wa xajan. marka maka uu soo galo waxa uu samaynayaa dawaafkii quduumka iyo sacyi cumradii xajka. intaa dabadeed ma xalaaloobayo oo sidiisii ayuu ku nagaanayaa ilaa laga gaaro maalinka 8aad oo laga aadayo goobihii mashaacirta xajka. halkaasuu ku dhammaystirayaa howlihii ku waajiba ee ka koobnaa cumrada iyo xajka aan ka ahayn sacyi, waayo hore ayuu sacyiga u sameeyey. waxaasna sidoo kale ku waajibaya hadyi hadduusan awoodin inuu ku soomo 3 cisho xajka dhexdiisa, 7 cishona marka reerkiisa uu ku laabto ayuu markaasi samaynayaa. ifraadkuna waa inuu xarmadaa xaj oo keliya, oo markuu soo gaaro miiqaadka ayuu oranayaa labayka xajan. markuu maka soo galo ayuu dawaafayaa oo sacyinayaa, waxaana uu sidanayaa ixraamkiisa. mana xalaaloobayo ilaa uu ka dhammeeyo howlaha xajka, wax hadyi ahna kuma waajibayaan. guud ahaan acmaasha xajku waxay ka bilaabanaysaa ixraamka oo loola jeedo niyeysiga uu qofku niyeysanayo xajka, waxaana laga soo xarmanayaa meelo mawaaqiida oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu noo sameeyey, waxaana ay kala yihiin dalxulayfa oo ah miiqaadka reer madiina, waxaana loo yaqaan maanta abyaar cali, aljuxfa
oo ah miiqaadka reer shaam waxayna u dhowdahay oo la siman tahay raabiq waxaana ay dadku haatan ka soo xirtaan raabiq. qarnul manaasil waa miiqaadka reer najdi waxaana lagu magacaabaa haatan arsayl alkabiir. yalamlam waa miiqaadka reer yaman waxaana ay dadku haatan ka soo xidhaan al-sacdiya. daatu cirq waa miiqaadka reer ciraaq